kulliyadda horumarinta iyo hogaaminta bulshada jaamacadda Nugaal magaalada Laascaanood ayaa maanta qabtay kulan aqoon kororsi ah oo loo qabtay ganacsatada yaryar qaybaheeda kala duwan. kulankan aqoon kororsiga ayaa ugu horeyn madaxa qaybta kulliyadda horumarinta iyo hogaaminta bulshada jaamacadda Nugaal Mustafa Cabdi Xasan sharaxaad ka bixiyay muhiimadda aqoon kororsiga iyo ardayda qabanaysa oo uu sheegay inay ka shaqeyn doonaan horumarinta ganacsiga magaalada Laascaanood. horta waa dhalinyar team aan anagu sameynay oo maanta aan ka dhex sameynay ardayda waa team isku xiran waa team runtii saad arkaysaan waxyaabo badan oo moogtahay daldaloolooyin ahaa oo ka jiray gobolka iyo meelo kaleba door muhiim ah oo aad u muhiim ah tusaale ahaan maaha ganacsatada jaamacadda laftirkeeda wax kusoo kordhiyay kulliyadan la yidhaahdo community development ama horumarinta bulshada iyo hoggaanka wanaagsan waxay u taagan tahay tiirar ay ku taagan tahay baa jirta waxa weeyaan kow inay bulshada dadka masaakiinta markaa waxa ka wadnaa dadka maaha wax mahaysatada maaha waa dadka aqoonta aan nasiib u helin in la caawiyo laba in bulshada loo sameeyo isdhexgal oo dadkii inay isfaham loo sameeyo in la baro dadka si khilaafaad oo gobolka aad u badan si loo xaliyo khilaafaadka waxa kaloo ka mid ah in loo abuuro qoladiina ganacsatada gaar ahaan maamulooyinka ka soo qayb galay moogtahay sidii ay ganacsigooda u horumarin lahaayeen oo waxyaabaha hadda laydin sheegay haddii aad ku dhaqantaan inta halkaa ku qornayd ama afka idinka sheegeen aad ku tijaabiya wax walba la tijaabiya ha qaadanin at least tijaabiya marka hore inta qodob ay idin sheegeen ardaydu idin sheegaysay bal ku tijaabi ganacsigaaga maanta bilow maanta ka bilow xisaabi kadib qorshe samayso. gudoomiyaha shirkadda Golis Aadan Cali Nuur iyo gudoomiyaha shirkadda Dahabshiil Group Cabdiqani Awdaahir ayaa dhankooda ku tilmaamay tallaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday. xaqiiqada leedahay ka hagaajinayna waxaan idinkeeda yaala waa hawshiidii halla qabto horta hawshaas waxaan u baahnaa inay yimaadaan arkaan dadka baahidooda qodobka kale waxaan u baahanahay inaan fahamno waxa la idinku yeedhay waa wacyigelin anaga ku dhaado nolol had wax badan oo 10 aan ka qaadanay meesha wacyigelintaasina dadku dhan baa facasa horta jaamacadda waxaynu aqoonsanaa maanta inay tahay hooyadeennii waxbarashada xogaa waa malaxanta waxa la shirkaduhu jaamacadaha ima wax ma siiyaan jaamacaddana waxaan wax ka siin doonaa hadda halkan waxaan wax ka qaban doonaa sanitationka ugu horeeya waxaan ku bixin doonaa $6,000 gudoomiyahana guddoonsan doonaa haddii rabbi wahad maanta laga bilaabo waxa weeye wala bilaabo doonaa iskuulaha la dhameystiro jaamacadda oo wax laga qabto ayaan insha Allah taala lacagta ku bixin doonaa taas waa intaas kulliyadda أنا وحكت السنة هاي وحكت السنة هاي كلية بيزنسكا لينك يجي لإبراهيم لواجهويا كنعسي وحنا كديار لكن كنعسي من الله دري وكنعسي كسر هذا مجال كم موجودة كنعسي كم موجودة مجال كم موجودة وحنا هنا إسلام تيجي يدا يبسطها أما إسلام تيبسطها مع الله يلا أما إسلام تيبسطها أقل شيء عنها inay supermarket weyn furato oo hadhow la yiraahdo supermarket waxa laga soo dhiraandiriyay ama laga soo unkumay caano waxa laga soo unkumay qudaar waxa laga soo unkumay bacadliya ganacsigu sidiisaba qof kasta zero ka bilaabma wuxuu u baahan yahay marka ugu horeysa niyad wax la yiraahdo inaan ganacsado waa inaan ku qanacsanahay number 1 niyadaas markaad keentid waa inaad tiraahdaa maxaa fursad ah wallahi fursad baa halkan ka bannaan marka xigta marka fursad heshid fursadaadi waxa laga yaabaa maanta inaad 5,000 heshay waxa laga yaabaa inaad 50 heshay reerkuna boqolku u baahan yahay oo qarashku ugu badan yahay see wax loo beeqaamiyay baayana meesha ku taal beeqaamintina waxa baahanta xisaab waa inaad tiraahdaa wallahi intaasi hadii ciyaalku xataa xaaladu adag tahay isticmaalna meel hala dhigo si hadhow la isu sirfanta gareeyo xisaabtaasna waxay baan tahay control iyo qalin iyo buu kuleedayadu intaas waxyaalaha ay ka shaqeyso weeye qolyahan
marka inay arkaan runtii waxay ku farxaan midhihii ardaydaas oo maanta raba inay aqoontii ay barteen inay gaarsiiyaan runtii waa wax ilaahay loogu xamdi noqo aan ilaahay ugu shukri noqono dhalinyaraduna runtii waa iyaga bulshada dhabar u ah waa meesha bulshadu ka kacdo runtii haddii aqoontoodaas ay inagala tahriibin ay inala garab taagnaadaan runtii wax weyn bay ina taraysaa runtii arrintaasi ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay quluubtooda inoo sugo waqtiyo fara badan waxyaalahan ka cabanay aan runtii ka hadlay ku dheeraan maayo laakiin bal kolley xagga qofku marka uu maadiga ilaa heer jaamacad ka gaadho dhalinyarada waxaad aada ugula dadaashaa runtii aan meelo horena ka sheegay bal diinta islaamka iyo qofku ilaahay xidhiirkiisa iyo waalidkiisa xuquuqda ku leeyahay in qofku diintiina wax ka barto waxay keenaysaa arrintaasi qalbigiisu inuu dego oo uu aamino waalidkiisii abaalku ku lahaa uu ogaado dalkiisu waxa uu ku leeyahay inuu ogaado wax badan oo dhalinyaradan tahriibaysa runtii dadku iyaga intaa habaaraya ayaa la habaaray way dhibaataysan yihiin waxbaa ka maqan qalbigaan u deganayn qofku wuxuu odhanayaa maxaan intaasaan waxaan marayaa maanta dhowr iyo labaatan waxaas maxaa yaala halkan maxaa caynkan su-aalo runtii uu u baahnaa inuu kitaabkeena ilaahay iyo diinta ugu laabto buu isweydiinaya oo hadduu diinta wax ka baran lahaa aanu isweydiiyeen marka arrintaas waalidkii maadaama uu joogo in badan oo ka mid ah waa talageliyaan usoo jeedin lahaa in arrintaas aad ogaagsanaataan because waxay arrintaasi aan ugu celcelinayaa muhiimadda ay inoo leeyahay ubadku waad dareemi karaysaa ilma aada 20 sano marka ilaa maalintuu dhashay ilaa maalintuu jaamacad ka baxay in aad soo barbaarinaysa wax baraysay inuu meel ku dambeeyo ama badbu ku dhintay ama dee aad yacni qofka murugo weyn bay ku keenaysaa marka waa in arrintaa wacyigelin laga bixiyo taasi waa taa qodobka labaad dhalinyarada runtii waxaan odhan lahaa aqoontu marka ay jaamacadda joogto waa theory oo macalinku bixinayo baa loo sheegaya inay sidaa hadda ay sameeyeen ay gaarsiiyaan dadkoodii oo ay si baraatika oo ay la taaban karo runtii oo kulliyadan aanu odhan karno runtii way ku mahadsan tahay waa waxyaalaha runtii aanu aada ugu boorinayno aynu ku bogaadinayno sameeya in badan ganacsiguna sidaa la sheegay maadaama inagu dad islaama nahay diinta islaamka meel weyn buu kaga jiraa waxyaalaha shanta ah ee diinteenu ilaalisay qodob ka mida weeye maal arrinta ay dhalinyaradu inoo sharxeen waxaan ku dari lahaa waxa weeyaan maadaama dad islaam aanu nahay shuruuc bay diinta islaamka u samaysay shuruucda laftigeeda inaynu wax ka ogaano oo qofku markuu ganacsi gelayo dhalinyaradu wax aada u fiican sidaad u tartami lahayd saad meherada gudaheeda u hagaajin lahayd qofka macmiilka ah oo qofka taargetka kuwa ah saad u soo dhaweyn lahayd oo runtii ay si wacan u sharaxeen oo aanan anigu ku tiigaalayna iyagoo ay si wacan u sharaxeen ka xumaynayn si wacan bay u sharaxeen oo waxa weeyaan goobta qofku inay aada u dhalaasho oo wanaagsanaato oo nadiif noqoto waa soo jiidasho qofku meesha quruxda badan bal eeg waxa yaala waa arrin wanaagsan arrinta hadda laga hadlaya qofku inuu arrinta xagga maaragtay wajahadda na waa arrin wanaagsan hal qodob baan ku dari lahaa runtii diinteena islaamkuna aada uga hadashay waa arrinta sanitationka ah waxba yeena dowlad hoose iyo kiciis iyo waxyaaba arrimaha caafimaadkan leeyahay dee nadaafadda waxayna taraya waxa weeye waxaa ka mid ah iminka waad aragteen ama meherada ha noqoto ama guri ha noqoto inta badan waxaynu samaynaa uskaga gurigeena aynu ku samaynayn waxaynu ku qubnaa waddada dadku marayo arrintaasi waa arrin runtii aada u xun waxaa lagu dhaqan ahaan waxay kasoo jeedaa Ethiopia dadka ka yimi baa keenay dadkeenu ma lahayn baa lagu yiri berigii hore gabadhu waxay kici jirtay 5 subaxnimo salaada marka laga soo baxo guriga hortiisa nadiifin jirtay waana la isugu fahmi jiray laakiin hadda maxaynu keenay inaynu guriga hortiisa ay noqoto meesha gurigaagana aad hagaajinaysaa meesha dadka islaamka ay marayeen waad madoobeynaysaa oo waxaad ku shubaysaa uskag oo sometime ay dhacayso qofkii waddada marayay in lagu shubo ay gaadho arrintaasi waa arrin diinteena islaamka aada ugu soo jeeda imaamku waxaa la yidhaha waa 72 buu ka kooban yahay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam soo inoo sheegay waxa ugu yar imaadatul adaa cani dariiq waddada waxa dhibaya qaar ka mid ah ardayda kulliyadda oo aqoon kororsiga bixinayay ayaa waxay soo bandhigeen qaabka loo horumarin karo ganacsiga magaalada iyagoo soo jeediyay talooyin ay si weyn u soo dhaweeyeen ganacsatada yaryar oo u badnayd haween maanta training ama wacyigelin ku saabsan oo aan wadanahay ardayda
horumarinta arrimaha bulshada aan ugu qaban doono dadka ganacsatada oo dhan maaha ganacsatada yaryar ee suuqa fadhiisata hadday tahay qolada qudaarta hadday tahay caanalayda iyo hadday yihiinba dhammaan cid ay qusayso ganacsigaas oo aanu doonayno inaanu kor ugu qaadno nadaafadooda iyo dhammaanba sidii ay u bedeli lahaayeen habka uu yahay ganacsigooda ujeedka arrinta nagu dhalisay waxaa weeye markaanu aragnay xaaladda uu ku sugan yahay suuqa weyn ee magaaladeena hadday tahay xagga nadaafadda iyo hadday tahay xagga stepka uu taagan yahay ee ganacsigeenu tusaale ahaan suuqa waad ogtihiin oo dhammaan waxaa jiifa biyooskaga kuwaasoo ay ku reemaan roobka daa dadka ay ku wada horganacsanayaan meel gudaafada aan ku habboonayn in dad ay wax ku iibiyaan oo ay iyagiiba khatar ku sugan yihiin sidaa daraaddeed markaanu aragnay dhibta ka jirta suuqeenna ayaanu haddaanu nahay ururka midowda ardayda kulliyadda horumarinta iyo hoggaanka wanaagsan waxaanu doonaynay inaanu idinkala qayb qaadano keliya maaha inaan anagu wax idin barno in annaguna waxaan hayno idinku celinno idinkuna sidoo kale wixii khibrada aad nagu soo biirisaan marka tababarku sidaas ku saabsanaan doonaa wuxuuna insha allah inoogu bixi doonaa afkeena soomaaliga maadaama aynu isugu jirno dad kala duwan oo bulshada ah oo heer kasta aqoonti ka taagan waxaan rajaynayaa idinkuna inaad wax badan aad nagu soo kordhin doontaan annaguna sidoo kale aanu idinka faa'iidin doono keliya annagu haddaan nahay ururka midowda ardayda jaamacadda wax fara badan baan soo qabanay hadday tahay wacyigelinta xagga waxbarashada hadday tahay research aan ku samaynay ama cilmi baaris aan ku samaynay daraasaad xaaladda waxbarasho ee gobolka hadday tahay midaan ka wacyigelinay hooyooyinka caanalayda ee waxyaalahan kala hadalay xagga nadaafadda gaar ahaan waxyaalaha balaastika ay isticmaalaan ee caagadaha biyaha lagu cabo oo aad khatar ugu ah dadka taasoo aan looguba talagelin qofku markuu biyaha ka cabo kadib inuusan isticmaalin ee loogu talagalay in qashinka lagu tiro arrintaas aanu mar hore training ugu qabanay hooyooyin fara badan oo ilaa 70 gaaraya weliba aanu sawirro caagadaha meesha laga keeno aanu ugu soo bandhignay sanadkii hore kuwaas oo ay wax badan suuqa iska bedeleen waxaad ogtihiin caagadahan caruurta keenta meesha idinka keenaan waxa weeye gudaafadaha idinka soo ururiya iyagoo bac ku jiraan gudaafadii kula kulmay caruurtii hooyooyinkana way ka iibiyaan hooyooyinku ma garanayaan meel laga keenay waxay moodayaan meelaha laga soo ururiyo kamid ah ardaydu baanahay inta dabadeed hordhigay barnaamijkeena waynu aragnay bal hadaba aynu ku galno aarahdayada ama aragtidayada kooban intii aan markaasi annaga noo muuqanaysay insha Allah ta'ala sida ka muuqata leeshayna kooban waxaan isugu nimi waa wacyigelin tababar keliya maaha isxasuusin iyo ka qayb qaadasho inta awooddaada qof walba karaankiisa ah idanka ilaahay haddaba aan ugu horeysiino maadaama aynu nahay ummad inteena badan wax badan suuqeena ka warhaya wax badan oo doondalo anaga laftarkeeduna aan ummadda laascaanood aan ognahay dhibaatooyinka iyo waxyaalaha qodobada ee ka jira suuqa dhexdiisa inta badan aan ka soo adeegnaba waxyaalihii aan u arkaynay marka inay ugu waaweyn yihiin aan soo ururinay baan ugu wadaagi doonaa aan u arkaynay inay wax jira yihiin wax qaabkii looga hortegi lahaa ama aan uga bixi lahayn aynu ku horeyn habka aad u kobcin lahayd ama aad kor u qaadi lahayd ganacsigaaga adigoo ganacsada ah oo aan ganacsada weyn ahayn oo ganacsada yar waxaa jira habab badan oo aad ku horumarin kartid isla markaana aad kor ugu qaadi karaysid ganacsigaaga qasab wax walba oo adduunka jira waxay u baahan yihiin horumar wuxuu doonayaa ilaahu marxabadii ayaa kaliya miiskaaga ku saarnaato maaha ujeedadaadu inaad xabada ayada weligaad u fadhidid ee waa muhiimadu waa inaad horumar ka gaadhid oo aad bili ka maalin ganacsi intaa ka ballaaran aad samaysan kartid qodobaan sameynay insha Allah qodobka koowaad markii aad doonaysid inaad ganacsi furatid ama aad doonaysid inaad ganacsi noqotid waxaa muhiim ah inaad ogaatid marka ugu horeysa baahida dhabta ah ee suuqa ka jirta waxaa muhiim ah inaad indho ku samaysid isla markaana aad in badan soo xiriirsatid si gaar iyo si guudba baahida dhabta ah ee suuqa ka jirta si ganacsiga ama meherada aad u furi doontaa ay u noqoto mid macmiil gaar ah leh isla markaana aad ku heli karaysid macaamiil ku xidhan ganacsigaaga oo haddii aan wax aan suuqa looga baahnayn oo kale aan samaystaa muhiim ima noqonayso isla markaana ganacsigayga kanaadayo imana nijaxa badeecada aad gadaysaa waa inaad si waxaa muhiim ah in waxa aad gadaysaa aad dadka adigu ka gedi karaysid ama aad dadka ku socodsiin karaysid
haddii aan hayo waxa adduunka ugu wacan laakiin aanan garanayn habkii ama xeeladii aan ku socodsiin lahaa ama aan dadka uga dhaadhicin lahaa waxay igu noqonaysaa inay igu istaagto isla markaana aan khasaaro ama mid weyn kala kulmo waxaa muhiim ah inaad garanaysid qaabka aad dadka ugu sharixi lahayd badeecadan aad diibinaysaa isla markaana aad ugu sheegi lahayd faa'iidooyinkeeda faa'iidadadeeda iyo waxyaalaha la midka ah oo aad ku samayn lahayd suuq gooniya wixii aad diibinaysay aad suuqeyn lahayd waxaa muhiim inta badan suuqyadeenu ma laha boorado ay ku muujinayaan ganacsatadu ganacsigooda marka laga reebo wax yar oo qaliil ah waxaa muhiim ah in aad boor u samaysid ganacsigaagii oo boorkaas oo ka turjumaya waxa aad ka ganacsanaysid iyo waxa uu yahay waxaa muhiim ah in boorka aad samaysanaysaa isaga laftarkiisu uu si dhab ah uga turjumayo waxa aad markaa aad ka ganacsanaysid boorka aad samaysid khaasatan qoryaha bacdayaasha boorka aad samaysanaysaa wuxuu sahlayaa in aad kasbo waxyaabaha aan practically aan u aragnay ama aan si dhab ah aan u aragnay weliba shakhsiyan aan arkay lacagta aad balse lagaaga qaaday galo lacagtii aad suuqa la gashay adigoo farmarada muxuu xambaarsan baad la soo noqonaysa halka oo aan shay qasdigaygu waa inaan soo iibsado laga yaabo inaan $20 aan guriga dib ugula soo noqo oo wayna dhacdaa oo wax la yidhaahdo wax lagu badan taa maxaa sababay waxaan u maleynayaa waa su-aal ay tahay inay isweydiin maankeeda iyo maskaxdeedana ku wareegaysa waxyaabaha meelaha aan ka dareemayno oo in ay waxyaalihii hadda kasbasho la-aanta ka mid ahay waxyaalihii laisla soo qaado waxa kamid ah maan isla eegnay markaad meeladeeda soo istaagto haddii aad mala eegto midnaba aad eegi kari maysa annaga ku furan haddaadan iibsanayne hore nooga sii shacab lagu oranaya halka meelaha kale laga yaabo gebigaaba inta lagu qabto lagu fadhiisiiyo dayda wuxuu xidhaa baa lagu shiganaya innagana waxaan moodaaba in kadanta waxyaabaha nususna waxaa ka mid ahaa meheradaha waxaa wada iibinaya hooyo sida ay maanta arkayno hadda waan ku faraxsanahay oo halka maanta dadka fadhiya dumar baa u badan oo ganacsatada shalay xafladan joogayna ardayda waxaa la lahaa dumarka u badan oo gabdhaha u badan oo de waxaad moodaa halkaas inaanu dalaal waxaa dumarka ku badan yahay oo ku faraxsanahay inaan arko ganacsataduna inay ugu badan tahay waayo shalay markaan invitationska qiiminaynay أول كلمة رمضان تقنوا مد باهي مقولة عندي أنا ساعة كمان نيجي بكتب ورنا العيد. سؤالي آخر صومال. وحيابها إن جنبك وحوي كان عكسك كلام. حركة يا بهاي دي إن هو بدنا هيستان إن قربي واحدة إني عروض كتمي إني عروض كور ورشة إني شقاي بدنا كفريين مهلت دي يبين الساعة الاسترس ما كفران مشغول ما كفران سواء حركة يا بالله ما بصلح بفوي ما دين سمو دون طاقة كمان بعد ذلك halka ay isticmaalaan dadka kale in ay dhalinyarada shaqo geliyaan oo meeshii islaamka dadka maxay dambe fadhidaayo wiil yar baa wasaa ku kala wado gabar yar baa wasaa ku kala wado dadku u shaqeynayso ganacsiga iib geeyay oo wax la yiraahdo iibinay dhibaatada dhalinyarada ay dadaan uga jirtaayo waxaan istusnaa in inamadu laftooda ay ka xishoonayaan nimada gobolkeedu inay meheradaha iibiyaan taalafkeedu waa caqabad taagan taas waan dhiirigelinayaa oo waxaan leeyahay arrintaan wax ka bedelo ورين wax ka bedelo dad badan baa lacagta la aado meelo kale in halkan wax laga iibsado laga adeegto oo dadka soo jiidata isku daya waa cid kasta wax iibinaysa walaal ka wada simana xitaa ku dukaamada yar ee bagaashku waa wada neerfoos ayroona wax inoogu wacaneen ma kasta aynu neerfoos ahaano ama aynu kasban kari weyn cid aan wax ka iibsanayno arinta kale iyaduna aad inoogu badan waxa weeye ganacsigan isku midka ah dadku waxay weydiiyeen ganacsiga samaysan ku ah laba sano sanad ka hor mise laba sanad ka hor been waxaan isku daynaa ganacsatada ku soo beero ka waxaan sameeyay meel baan fursad ka yara arkay ka yara banaan tahay oo waan istaagay halka macmacaan u yara baahan tahay dictator dad yara aniga oo hawshii ku dhex jira baa waxa kamid ka dhinacay war maxay ay meesha ila wabayadi waba araabta ma dhigay soo intii kale wabasi hada sheeka markaa qoliya ganacsatada xalay waxaan waarin inooba caadaha inooba dhaqane tartan iyo competition sameeyay insan tartan u sameyn karaa maxaa sameeyaa wala macaamiisha soo jiidata oo macaamiisha maxaan idhaahdaa waa ganacsatada kulay wuxuuna waa waxay u baahan yihiin kulay xirfad waxay markaas kulay waxaa jirta hooyadani meeshan ay ku ganacsanaysa inaysan arkayninba ee ay iyadu ku maqan tahay ra'yiyo kale oo maskaxdeeda ku jira ubadkii daryeelkiisii baahiyo fara badan markii horena aysan dhaqaalaba meeshan la imanay afar midoo yaayo oo meel kale ka soo qaado gabar ka soo deysatay iyo jawaana meel ka soo qaatay meeshan goglatay tan caano inay caagad caana intay meel ka soo qaadatay tii caagada caana bal qutulyoonka caruurta balan ka eego
tan hilibka u qalaysaana ay neef misaylad keensada ay soo qaadatay marka wax dhaqaalaaba aysan u haynin meeshan ay ku qabato niyadeedina aysanba arkaynin oo maskaxdeedii ay buuxido ayna ku fakerayso waxyaabo kale oo badan oo nafteedii iyo maskaxdeedii mashquulinaya ودنيهدي gaarka ahaa gurigeeda ay ka haysay waxa nasiib wanaag ah aadan cali nuur uu kacay hadda iyo aniga oo nasiib darro aan u maleeyo insha Allah billahi kareem waxaan ahay laba qof oo ganacsada ah oo aan maalintii aan u ka tagto corona nasiib darro maanta ganacsatada waa weleed buu ku hadlaa la ganacsatada yar yar ana kolay aqoon darri iyo hawl ay gata weyn oo aan hayo iyo wax fara badan baa markaa taana keenay insha Allah wasalaam alaykum gudoomiyaha jaamacadda Nugaal Professor Cabdirasaaq Lafoole ayaa ka warbixiyay isku xidhnaanta kulliyadda iyo ganacsatada oo sheegay inay isu baahan yihiin ka faa'iideystay ayaan idin xusuusinayaa koow waxaan ka faa'iideystay dhalinyaradaasi dibad kama iman gobol kalena kama iman jaamacad kalena kama iman guriyuhiinii bay ka yimaadeen waa caruurtiinii deegaankii wax ku barteen jaamacadiinii wax ku barteen may safrin mana ayna tahriibin lacag fara badan oo dibadda loogu qarash gareeyay iyo dhul iyo boos iyo ganacsi loo xaraashay ma ay dhicin laakiin deegaankii ay ku dhasheen ayay ku kareen waalidkood iyagoo la jooga oo waalidkood caawinaya ayay aqoontaa yeesheen ee dadkaasi ma u qalmaan dad la dhihi karayo waa mas'uuliyiin oo waxba lagu aamini karaa oo waxba ay barteen mise ma qalmaan miyaynu u baahanahay marka inaynu meel kale loo dhaqaqamo oo qofku uu meel kale wax u raadsado haddii gabadhaas iminka hadlaysay ee Zainab Sheekh Yuusuf Haybe hadday maanta gobol kale u aadi lahayd tacliin marka ugu horeysa jaamacadda ay aadi lahayd jaamacadda way ka qaalisan tahay oo dugsiga sare ee Xudun iyo jaamacadda Nugaal fiiga laga qaado waa isku mid soddon baa laga qaadaa dugsiga sare ee Xudun jaamacadda Nugaal waxay ka qaadaa soddon تاكو بشاريس هذي ملك الإيدين آدي لهاين أما هرجيس آدي لهاين أما عمود آدي لهاين أما الجرو آدي لهاين أما سالك قادي لها بدل مصاريف سيولة العاد بدل بالك قادي لها مصاريف بدل نوافق بحين لهايدين ترانسبورتيشن نوالو بحين لها إمنك معلم كفيجو ولا السياي أو معلم فؤاد يا معلم مصطفى عانها يهلبك يا شاتية يا بارفونك يا صابونتا إذنك إبسدانك حتى لكن مالك لكم بحين لهايين ميشا أي تشوغان بمعلم كيسو إبسانياو قرياك أي إشارة يا صوما وعشرك كواد وأن كفا إيديستي إن تدك ساكا وحا إنو صوبا لغي أين يهين تدك يمين مالك أيهين قرياني يا جامعة ديني عشرك الله بعد وأن كفا إيديستي وحاوي ويقول حصوصين عليه عقا وينا ميوها سينوي نجحي لكي هالكيسة معوها دكانكي عقا ويني لود كان الشيخ مصطفى هقامين يمحوها عليه معلم حسن oo ah kulliyadda horumarinta arrimaha bulshada iyo hoggaanka wanaagsan Zainab najahay Moonay Siciidow Cabdi Khadarow ما أودنا إذن كن أتصالات بحسان أو الدكان فرتان تال عقل سوق ستان دين يداخوا وعقل وين كفعناه بكرة قرناين إلا وحويه قفكم مركه هروح ودوني وإنه صومها قلبي كأنه كذب نوع محين صدق كهر لما معه كعيقة فعل كسومه إيمانك كورو إيمانك الإيمان وامحي الإيمان ما أقر بالقلب سومها وعرف سومها لقاها الله وصدقه العمل يا وشيء قلبك إيمانك الدين لما أنا مبالي